Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaha ku nool dunida daafaheeda meel walbood ka joogtiin aad baan idin salaamayaa. Salaan kadib waxaan ka hadlaynaa mowduucini maanta oo ah ilmaha yari oo hadeer dhashteen laga bilaabo maalintii la dhalo ilaa iyo laga gaaro 6 bil ama 5 bil kale maxaa ilmaha yar u keeno oohinta badan. Mostly waxaan ka hadlaynaa ilmaha markay jiraan maalintay dhashtaan oo 0 ah ilaa iyo 3 bilood iyo isbedelka iyo cunug inuu oohin keeno maxaa sababi karo maadaama ay hooyadii ama aabihii uu kusoo biiray ama familku uu kusoo biiray baby yar oo haddana waxaa waaye cunug naftigiisa environment la qabsanin sababo jiro awgeeda ayaa waxaa keeni karto cunugiina inuu confuse noqdo waalidkiina ay ku confuse karo waan labada dhinacba wayna dhacdaa inkastoo caruurta yar ay kala duwan yihiin haddana waxaa keeni karo waxyaabo qaar la xiriiro xagga caafimaadka cunuga iyo ilmaha naftirkoodaba kala dabeecad cunug waxaa laga yaabaa inuu iska kulul yahay isagoon xanuunsaneen waxba aanan haysanin xaalad caafimaad la xiriirin oo haddana ooynaayo aad arkaysa oonan seexaneynin mostly habeenkii iyo ilmaha way dhibaan waalidka hooyadiioo markaas dhashay oo daalan oo maybe operation ku dhashay ama normal u dhashay xanuun dareemayso iyo cunugii oo ooynaayo dadka qurbaha joogana kaba sii daraanba maba haystaan qof saacideeya waxaa laga yaabaa xaajiga xitaa inuu ka fog yahay reerka uusan u dhaweyn so waxaan ka hadlaynaa hooyo kow inaad patient ahaatid oo samir badan aad yeelatid oo ilmahaagi waxaa waaye aad siisid time ilaa 3 bilood 3 bilood markii cunuga uu gaaro wuu isbedelayaa ayaamaha u horeeyo sidaan ognahay 2 isbuuc ugu horeyso cunuga waxaa waaye ma kacayo hurdo xitaa kaba kaco waa la kiciyaa naaska waa la siiyaa qolada caafimaadka adduunka oo ka hadasho qeybta caruurta yar waxay sheegtaa laga bilaabo maalintuu cunuga dhashto ilaa 2 week kale oo xigto maalintaas markii laga bilaabo ilmaha waxay hurdi karaan 17 saacadood ilaa 29 saacadood yacni waqtigiisa inta badan dhan wuu hurdaa taasina waxaa waaye environment uu ku cusub yahay u keenayso waxay noqonaa marka cunugii xanuunyo badan ciriiri badan wax badan ku jira relax uu dareemaya markaas uu seexanaya after that 2 isbuuc kadib waxaa bilaabanaysa cunug inuu meeshii la qabsado uu soo kaco maalintii dhan hurdo habeenkii uu ka seexdo saacado yar ama habeenkii oo dhan hurdo maalintii uu ka seexdo saacado yar halka 2 isbuuc u horeysa uu waqti badan uu seexanayo oo xitaa naas ku soo kaceenin hooyadii nuujinayso kale aanan usoo toosanin oo kale cunugeeda naaska ee dib ay ku kiciso marka 2 week cunugii uu gaaro wuxuu bilaabayaa inuu soo kaco asagoon la kicinin oo badanaa waqtigiisa uu soo jeedo ilaa 3 bilood uu ka gaaro taasina waa wax iska caadi ah wax dhibaato ah malahan haddii uu cunugaagu caafimaad qabo waxaad ka ilaalisaa kaliya cunug markaad quudisid oo naaska aad siisid haddii aad caano siinaysid caano aad siisid feedingkaas markaa u sameysid kadib inaad aariyada ka bixisid taasoo kale haddii cunug aariyada laga bixinin waxay u keenaysaa cunugii inuu dibiryo dareemo calooshii fuur ay noqoto oo cunugii relax noqon waayo uu seexan waayo markaasoo kale cunug wuxuu bilaabaa inuu ooyo waxaa kaloo keeni karto in cunugii uu caano ku filan ama naas ha noqoto ha siiso hooyada ama hooyada si kale u xanuunsanaato caano kale hala siiyo cunugii inuusan heleynin wax ku filan oo calooshiisa iyo asaga kaafin kara uusan haysanin taasina waxay keenaysaa cunugaaga inuu ooyo badanaa waxaan kaloo ka hadlaa oohinta cunugan ka hadlaa waxaa kaloo keeno in cunugii uu dareemayo kale kuleel oo dhar badan loo xiro kululaado kale way keeni kartaa waxaa kaloo keeni karo hooyada cunuga qaabka ay u seexinayso kale in uusan relax ku ahayn ama wixii uu caanihii uu cabay aan looga daacinin ama waxaa waaye si oo qalqaloocan oo kale cunuga inay u seexinayso comfort uusan ahayn taasna way keenaysaa ama nadiif cunuga xilligaas uusan ahayn waxaa kaloo keeni kartaba cunuga inuu daalay uu wax badan soo jiifay maalintii uu rabo inuu ciyaaro habeenkii uu kaa seexdo caawo dhan ilaa 9 saac inaa ku gaarta laga yaabo 9 saac wixii kaa dambeeya uu kaa seexdo markaasoo kalena way keeni kartaa mid ugu badan ilmaha u keentana waxaa waaye oohinta badan iyo hurdo la-aanta habeenkii waa calool xanuunka way u keentaa anaa arkay taas cunuga haddii caloosha laga heeyo waxaa lagu dareemaa luguhu isku riixriixaya maanta dhan lagu isu gargaraacaya yacni soo laaba asaga dhan caloosha laga qabanaya waxba ma sheegan karo wuu ooynayaa marka calool majiirka daawooyinka loogu talagalay aad siisid oo koolika aad ka bixisid
wuxuu dareema cunuga mid degan inuu noqday, relax uu dareemo iyo comfort wuu kaa seexanayaa. Hooyo waxaad ku dadaashaa cunugaaga inaad naaska kaliya siisid oo caano ugu darin. Haddii aad caano ugu dartidna markasta waxaad ku xisaabtantaa inaad oo koligaas daawooyinka looga hortago aad u diyaarisid oo calool majiirkaas si uusan cunuga u dareemin. Ilmaha waxyaabaha u keeno waa intaas, wax kale ma jiraan. iyo isbedelkaas oo environment-ga bes ku sababi karto. Marka hooyo walibo samirka ha yeelato 3 bil cunugaaga maalintuu gaarana si fiican buu u seexanayaa, wuu la qabsanayaa. Halka 2 isbuuc u horeyso cunuga uu seexdo saacado badan, laakiin wixii ka dambeeyo wuxuu seexanayaa 24 saac buu wuxuu ka seexanaa 14 saacadood kaliya. 10 saac waa inuu soo jeedaa. Taasina waa mid normal ah. inta kalena waxaa waaye cunugaaga haddii uu ku caafimaad qabo isbitaal aad geysay uu fiican yahay, alxamdulilah dheh. Iska samiraan dhihi lahaa waalidka ama aabaha ha keergareeyo ama hooyada ha keergareyso cunuga. Mostly ilmaha yaryarna waxay u badan yihiin habeenkii inaysan seexanin oo maalintii ay seexdaan. By the way waxaa waaye haddii waalid leeyahay waxyaabo badan dad hortaagan, waxaan kula dardaarmaa inay samraan waalidka. wax kaloo dhibaato aanan jirin intaasba haddii cunugaaga aad ka ilaalisid uuna caafimaad qabo waa alxamdulilah. After that cunug wuu ka baxayaa 3 bil haddii uu gaaro sida normalka u seexanaa habeenkii 8 saacadood inuu ka seexdo 6 saacadood baa laga yaabaa. Intaas waxaan kaga baxayaa mawduuca. Assalaamu calaykum waraxmatullahi.